السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta badan oo walaalkii Maxamed Maare wax kastoo aad maanta haysatid oo nimco ah waqti bay leeyihiin sidaa daraadeed ka faa'iideyso waqtiga ay nimcadaasi dushaada taagan tahay ama ay u diyaar tahay inaad adigu ka faa'iideysato haddii kale waxaa dhici doontaa waqti nimcadaasi u wareegto meel aan adiga ahayn ama qof kale sida uu Ilaahay quraankiisa ku yiri wa tilka ayaamu nadaawilaha bayna naas maalmaha iyo adduunyada waxaanu ku dhex wareejinaa ama aanu ku dhex wareejinaa bini aadamka dhexdiisa sidaa daraadeed haddaad maanta caafimaad haysato haddaad hanti haysato haddaad farxad haysato haddaad qurux haysato shay kastoo aad haysato waqti bay leeyihiin ay kaa dhammaanayaan sidaa daraadeed ka faa'iideyso oo isku day nimco kastood maanta haysato sidii aad uga faa'iideysan lahayd inta aadan beritoole ka qoomamayn maxaan shaygaas markaan gacanta ku hayay aan uga faa'iideysan waayay inkastoo bini aadamku markasta isaga samaysan yihiin in waxa ka maqan ay markasta raadiyaan ama shayga ka maqan ay markasta tabaan oo qofka $900 haystaa wuxuu raadinayaa $100 oo kunka ku buuxiyo qofka konton haystaana wuxuu raadinayaa konton uu boqolka ku buuxiyo qofka nimco haystaana waxyaabo kale oo ama caafimaad haystaana waxyaabo kale uu sii raadinayaa marka noloshan adduunyada meel lagama xasilo meel kuma farxaysid oo kuma xasilaysid ilaa aad fahantid shay kastoo agtaada yaala wax kasta oo dhinacaaga yaala inay yihiin nimco maanta kula joogta oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuugu deeqay oo lagaa rabo keliya inaad ka faa'iideysato kuna mahadnaqdo nimcadaas oo ay noqoto nimco aad ka faa'iideysatay Ilaahayna aad ugu shukri naqday oo kuu keeni kartaa inaad wax intaa ka badan aad hesho ama wax intaa ka siyaadsan ama ka ballaaran oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyo marka gunaanadkayga shay kastoo maanta gacanta ku haysato hasaloogin sababtoo waxa jira qof kaa daran baa jira maanse yaro aan lahaaba waxa ku jirtay adduunyadu waa warside insaankuna waa waraaq haddaad wacan tahay adigu nin buu haystaa walaac nin baa weheshada xanuun nin baa waalane ogow waxyeeladu waa duruus waxay ku bartaa dulqaad waxa intu mar bay dhashaa inuu weynuhu ku rogo mar baad waayaha adduun walaal moodaa ku jecel marka waxyaabahaagu isugu aadisay wax kastoo aad haysato markay isku aadaan marka qaar waxay muhiimsan in adduunyaduba kula dhalatay laakiin waxaad arki doontaa saacado ama maalmo yar oo wax kasta isku bedelaan sidaa daraadeed ka faa'iideyso shayga aad maanta gacanta ku hayso ka faa'iideyso nimcada aad maanta haysato